السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta qaaliga waa walaalkiin iska yare ku soo dhawaada cashirkeedii saddexaad ee aan uga hadlaynay IQ option trading platform habka loo taxliiliyo. insha Allah maanta waxaan fiirinaynaa indicatorska anagoo isticmaalayna cashiradii hore. breakout strategy la dhaho strategy breakout strategy la aan isticmaalayna. maanta waxaan ku dabaqaynaa strategiyadeena. indicators dad ay soo weydiiyay asxaabta qaar ay soo weydiiyeen waxay dhaheen indicatorska balka waran profit ma leeyahay. indicatoraha way jiraan indicator oo ku sheegaya suuqa 90% ku siinayo ama 85% ku siinayo suuqa ilihiisa habkaad raaci lahayd, laakiin se badanaa isku aamineen indicatorada qaar. waxaa fiican adiga u taxliiliya hab suuqa celcelis meelihii laga soo celceliyay inaad ogaato taxliilin oo technical analysis kaagana u isticmaasho adiga indicators aaminin. kadib indicators ku dabaq marka u hesho ila gooni ah aad u isticmaasho istaraatiijiyadaada. okay good. hadda waxaan isla fiirinaynaa suuqan euro USD. okay waxaan tegaynaa investing.com website keeni aha aan ka ogaanayna suuqa awoodiisa. okay technical kortag technical summary ka dooro, then waxaan u baahannahay meeshan. okay 15 minutes fiiri euro USD wuxuu marayaa xaalad strong sell ayuu marayaa. haye hourlygiis aan 30 minutes aan fiiriyo strong sell, then hourly strong sell, 1 minute strong sell, 5 minutes strong sell, all the way daily strong buy. okay weekly suuq waa la iska indheeyaa, laakiin aniga waxaan trade garaynaynaa 15 minutes. that minute aan trade garaynaa, sorry that minute ayaan trade garaynaynaa. okay aan ku dabaqno suuq zoom out iska dheh sida ogaato celcelis meelihii laga soo celceliyey, meesha ugu sareysa uu gaaray, meesha ugu hooseysa uu gaaray. heelaad saaro, horizontal line saaro si aad u fahanto suuqa celcelis meelihii laga soo celceliyey. okay good. meesha labaad inta ayaan dhihi karnaa. okay iyo hadda meesha oo marayo good. soo dhaweey indicatorka isticmaalayna waxaa la dhahaa moving average ku dhufo moving average dooro, then 14 ku aato EMA ka dooro, oil ka dhig, then apply. okay red waaye colorkan ka bedelaynaa si uga duunaado, waxaan ka dhigaynaa white. good. EMA kale moving average soo dooro 20 ka dhig meeshaan or 26, then EMA boil green. okay then no show the way. aan fiirino horta selleriska intuu isku dayaan markaan isku dayaan togtaan waxay ila eg tahay in ay breakout samayn doonaan. soo dooro indicator la dhahona awusum accelerator. okay intaan aan right ka dhigo apply. okay markaan one ayaan gelinaynaa, $1 ayaan gelinaynaa si aan ogaano. ani badanaa indicator ma isticmaalo, laakiin way fiican tahay marmarka qaar inaan ku dabaqdo technical analysis kaaga. okay breakout ayuu sameynaa, waa jagaraynaynaa, waa isku soo laabanaynaa resultiga ku dhamaada tradekan. Bye.
Our first trade waxaan sameynay loss, waxaan isticmaalnay indicator. Okay, hadda waxaan fiirinaa istiraatiijiyadeeda. Okay, horizontalka line soo qaad. Okay, how many times ayay sellers isku dayeen inay gudbaan meeshaan? Okay, 1 2 touching, at least meeshaan wuu gaari doonaa. oo meeshaan taabto spread out. waxaan haysanaa waqti purchase time. Okay, tagtaan sel ayaanu bush garaynaynaa. waxaan isku soo laabanaynaa resultkii oo ku dhamaaday tradekan. asxaabta qaaliga take profit ayuu noogu dhaco oo jeedaan. hadda indicator ma fiirinin, waxaan fiiriyay habka dhaqdhaqaaqa uu sameynayay suuqa. waad u jeedaan inta tajin ayuu sameeyay, uu taabtay halkaan noogu taabtay. Okay, inta noogu taabtay all the way same line ayaa laga celceliyay. 1 2 3 waa same line. Okay, breakout ayuu sameynaa. still chance ayaan u haysanaa aan sal usii geli karno, laakiin waqtigaan sugaynaa. purchase timeka ayaana maamulo. Okay, still waxaan u haysanaa chance sell. meesha uu ka daadanaya ayuu suuqa joogaa. Okay, insha Allah waxaan filaa inaad la socoto habkaan wax u sharxayo, inaad fahmayso. Okay, hadda waxaan u raacaynaa sell. Good. waan isku soo laabanaynaa natiijada ku dhamaaday tradekan. asxaabta u jeedaan take profit ayuu noogu dhacay. marka waxaan ku taxliilinay as a technical analyze, mana raacin moving average. indicatorskan aan soo saartay maan raacin, badanaa kuma trade gareeyo. waxaan fiiriyay suuqa inta jeer celcelis laga celiyay
meesha hoose macnaha leenka hoose inta jeer laga celiyay waa the same line waad ujeedaan inta waxaa inta iska dhaaf hadda meeshaan oo break out ku sameeyay iska dhaaf meeshaan oo soo jabiyey ha fiirin okay waxaan fiirinaynaa kow intuu taabtay waa laga celiyey all the way aan socono xeer zoom out aan dhahno aan socono intuu waa laga celiyey waad ujeedaan marka 1 okay 1 meeshaan ka bilaabo kow 2 3 marka saddexaad wuxuu sameeyay break out haddana waxaa ila gooni ka sii helay sii bayaaniyey inuu hoos usii daadan doono waa moving average kan waa 2 line emotional moving average ayaa lahaa marka hadda midkan cad wuxuu sheegaa suuqa daadashadiisa seliska midkan greenka wuxuu ii sheegaa sorry midka greenka haddii oo macnaha adiga the 2 lines way ma fahantay labada line haddii isdhaaf isku sameeyaan hadda fiiri midka cadaanka wuxuu gudbay midka greenka ayuu macnaha soo dul maray out of macnaha salary hadda waa salaryga awood ku leh marka indicatorkan wuxuu ku macneynaa hadda suuqii laabasho ayuu sameynaya ujeedaan hadda white-ka wax yar qalooci hoose oo ka baaba'ay kor ayuu isku sii laabaya ujeedaan kor ayuu isku sii laabaya mar walba marka kasii dambeyso oo macnaha cadaankan oo greenka oo dul dhaafo all the way suuqa uptrend ayuu ekaan doonaa macnaha suuq kor usii socon doonaa insha Allah waxaan filayaa inaad fahantay indicator iyo analysis-ka caadiga farqiga u dhaxeeyo hadda waxaan sameynay saddex waxaan sameynay trade ayaan sameynay hal loose ayuu nooga dhacay labana win ayaa noogu dhacday marka labada win noogu dhacdo waxaan isticmaalay technical analysis-ka caadiga anigoo fiirinay indicator marka insha Allah waxaan filayaa inaad comment-ga igu soo qori doonto labada indicator in la raaco iyo in la analyze gareeyo technical analysis-kaaga aad isticmaasho midka fiican comment-ga igu soo qor insha Allah mar dhow waxaan qaban doonaa live trade zoom-ka aan ku kulmi doonaa asxaabta qaaliga ku soo biir haddii aad doonayso inaad wax ka fahanto IQ option trading platform telegram-keena wuxuu yaalaa video-gan description-kiisa ama comment-ga ugu horeeya insha Allah meeshaas oo kaaga horeeya dad in badan suuqa ku jiray aadna ka faa'iidi doonto aadna ka heli doonto concept fiican waxaan filayaa inaad ka hesho muuqaalkan sii share garay asxaabtaada la wadaag si uga faa'iideystaan waxaan filayaa inaad adna ka faa'iiday waxaan ku leeyahay soo dhawow waa anigoo iska yara oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh